بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن وناكسن داوديال halka aad naga daawanaysaan waa stuudiyaha aan ku leenahay Minneapolis Minnesota ee cariga Mareykanka barnaamijkan gaarka ah waxaan ku eegi doonaa nabadgelyo xumadii aan hadda ka hor dhowr jeer idin soo gudbinay ee ka jirtay xaafadda North Minneapolis ee gobolka Minnesota haddaba sidaan horay u wada ognahayba amnigii ayaa xumaaday kadib dilkii George Floyd ee bishii May 2020 intaas wixii ka dambeeyay dadka ku dhaqan magaalada Minneapolis waxay la kulmi jireen dil dhac iyo boob waxay ku kaliftay inay dhowr jeer gudbiyaan cabashooyin ku aadan in nabadgelyo xumo ay haysato cabashooyinkoodii faraha badnaa ee aan soo gudbinay hadda waa la aqbalay waxaana loo geeyay security ama ilaaliyayaal 24 saac dadkaas badqabkooda ilaaliya waa kuwan ayagoo farxad darteed ku qadeeyay banaanka kuna dabaaldegay maanta waxaan marka hore ku horeynayaa AJ Cawid oo ah maayirka u tartamaya magaalada Minneapolis haddaba waxaan idinku hormarsiinayaa hadaladii uu maanta meesha ka yiri markii uu la qadeeyay lana qaatay farxadda dadkii ku noolaa xaafadaas وبركاته سيا وقتي مقعي محاوي AJ عواد مشرح دوق مقالة مينيابوليس سيا وقتهين ويجي هراء والله نحدن يو دبنا سو جاري ولا لهنا أو نورث سايد كجوجو أو دبسنا أو أمني جودا يسيفتي جودا كهاد لجي سيا وقتين عنيجا وسوء ماضي وقرب تاجنا ذي واتها جاري maanta wallahi aad iyo aad baa u faraxsanahay si aad u aragtiin meeshan ciyaal baa ka ordayay amnigoodana maantana meel fiican ay maroosa maxaa ka codsanay shirkadda meesha haasato inta security si degdeg ah u keenaan anagoo mideysan oo wax isku qabanayno oo garab siinayno marka pressure ka saarnay si ay u aragtiin hadda security wuu imaaday meesha security hadda wii haasataa so maxaan dhihayaa walaalayaal anigoo maanta xil haasanin oo maanta runtii awood oo dadkay ku caawiya haasanin si xaafadan iyo walaalahay si degdeg inta u imaaday oo garab siiyay oo caawiyay إن شاء الله محن دهيا هدانية ماتا إدورتين أو قرب السيسين أو سو سارتين سيا حافظ نوع عاوية سكوا وناكسن بني عاوينا يا كنعسياشة ماموين كدلنيرذا سو إن شاء الله هدارب نوس بدل أنت عرقنا سيا حافظ نسبدل وأركان أنت سكو إيمانه ويا إن شاء الله أنا محرجينا يا أنت سكو إيمانه أو محاير هذا إن شاء الله أنا كقولي سنة تاريخ عرب أنت أقرنا سنة كن هذا يوم سنة هاي AJ عويد waxaan sidoo kale meesha aan ka maqneen dadkii ku noolaa oo ayagana noo sheegay farxadda ay dareemayaan iyo shucuurta maanta inay isugu soo baxeen guryahooda hortiisa kuna qadeeyeen si cabsi la'aan ah ay ku qaateen maalinnimadoodii quruxda badneed عليكم ورحمة الله وبركاته مالدوي تول marka hadleen dad aad u murugsan laga qaatay gaariyaashoodii dhibaato xaafadda ku soo gaartaan heen maanta waa ka soo enjoy gareynahayno aad ayaa noola caawiyay ilaaha mahad iskale marka hore markii labaadna waxa aad ugu mahad celinay AJ oo hiil iyo hoob nala garab istaagay ay aad buu noo garab qabtay khayr Allah siiyo haddana waa ka ma sha Allah ku jirna aad ayaan kugu mahad celinayna wassalaamu calaykum maanta halkan aan isugu nimid dadka dhan waan u mahad celinayaa ummadiina dhan meesha isugu timid so anagu problema ka cabanaynay alxamdulillah problemadii intii badneed waa la xaliyay waxaan la joogaa wiilal badan oo walaalahayna oo maxay tahay nala shaqeynaya so Abdi Samad uu noo yimid maalintii hore uu nagala qayb galay arrimahan maantana uu noo yimid waxaan leenahay thank you so much meel fiican aan nooga soo baxday aad baan kuugu mahad celinaynaa inta ayinka badan waa ka sii rajaynaynaa so anagu waan hadalay hadda waxyaalan ka cabanayno dhan waa naloo dhameeyay waxaan leenahay halka laga sii wado insha Allah hadii Ilaahay ka dhigo الله يا مهد سكله
first marka ugu horeysa waxaa ku xiga walaalaha dhammaan oo noo yimi oo na garab istaagay maalinkii hore iyo maantaba aad iyo aad bay u mahadsan yihiin dariskeyga ana aad u mahadsan yihiin oo suukayay maxay ahaydey waqtigan sameeyay aadka u fiican walaalaheen dhammaan intii noo timi ama ha ahaadaan walaalkeena wax naga duubaya iyo dhammaan AJ aad iyo aad bay u mahadsan yihiin ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa insha Allah inaan guul sii gaarno oo sidan oo kale aan iskugu nimi ayaan tidhaweyd iyo maantaba inaan maalin walba iskugu nimaadno oo aan uga hadalno dhibaatooyinka jira insha Allah aad iyo aad ayuuna u mahadsan yahay waxaan rajaynaynaa inaan aan hore u sii socono oo maxay ahaydey wax kasta oo yimaada aan ka wada hadalno bismillaah magacaygu waa cabdiqadar jaamac football waxaan ka mid ahay community-ga degan halkan alxamdulillah maanta aad baan u faraxsanahay xaafadii dadkii deganaa waa la dabaaldegayaa kadib markii aanu soo marnay xoogaa dhowr wiig oo yaraa maaragtay cabsiya iyo wareera cabashadaydii hore aad baa looga soo jawaabay security baa naloo keenay xaafaddu sidii hore aad bay uga fiican tahay iminka ciyaalka waa ciyaarayaan wadinka arka awal bannaanka looma soo bixi jirin gaadhiga markaad ka degayso qofku inuu hareerihiisa fiiriyo bay noqon jirtay ilaa 4-5 gaadha xaafadda lagu dhacay marka waxaan u mahadnaqayaa cabdiweli cabdisamad AJ oo u cararaya sidii Minneapolis mayor baaqaygii hore wuu yimi uu nagala qayb qaatay murugadii dhibkiina haystay maantana farxaddii wuu nala qaybsanayaa uu noo yimi waxaan aad ugu mahadnaqayaa dhammaan xaafadda iyo dadka bulshada isu soo baxay insha Allah waxaan idinka codsanayaa inaynu codkeena ku biirino ninka dhalinyarada ee aqoon-yahanka isu soo taagay inuu dadkiisa iyo maaragtay bulshadiisa caawiyo haddii dadku ismuujiyaan cududooda oo ay soo baxaan waxa weeye codkiina ayaa qof waliba uu ku tiirsan yahay marka waa inaynu insha Allah soo baxno ninka dhalinyarada u codayno codkeena siino isaguna bari wuxuu inaga ballan qaaday inuu qabanayaa ammaanku ka shaqeynaya mustaqbalka carruurteenu ka shaqeynaya waa nin dhalinyaro ah waddanka ku koray wax ku bartay wuxuu og yahay waxa xaqiiqdu tahay iyo waxa jira iyo dhibka waddanka ka jira madaxda hadda joogta waynu tijaabinay waxay yihiin laakiin waxaynu u baahanahay isbedel iyo in maaragtay dad cusub meesha yimaadaan inaynu inaguna soo baxno oo codayno haddaadan miiska fadhiyin dadka loo tashanayaad ka mid tahay marka waa inaad miiska fadhidid oo talada wax ku yeelatid alxamdulilah rabbil caalamiin intaasaan kusoo gabagabaynayaa ilaahay baan u mahadnaqayaa sukan keenay aad baad u mahadsantihiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحنا هاي ضدك ماشان دجنا بانك منا هاي سيسن هيومن أبارمنتي مركا كواد إلهي سبحانه قادر أما هذا إسكاله مركا لبعض ويلش النوع ماذي AJ وكجرة كمدي هاي مركا كوادنا النوع ماذي مركا لبعضنا النوع ماذي أيان ما هذا إسكاله الحمد لله رب العالمين سيد ما أنت هرعان إهن ما أنت منهن وكفي عنها الحمد لله ما شاء الله سيدا نوغسو قرمتين ما شاء الله أو وحا نولا قبتين دمانتين بوا إذا مهد علينا إن شاء الله بإذن الله كريم آد بأمها سنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته eejayow aad iyo aad baad u mahadsan tahay maadaama meeshaan aad 2 jeer noo imaatay oo aad maxaan ku dhahaa baahidanada iyo dhibkanaga aad ka danqatay oo aad inta imaatay aad iyo aad baad kugu mahadnaqaynaa 100% dadkana waa community-gaagii waa maxaan ku dhahaa soo dhawow waan ku leenahay aad iyo aadna waa u mahadsantahay السلام عليكم walaalo aad iyo aad baad u mahadsantahay maadaama aad noo caawiseen dhibaatadii iyo dhibkan qabnay iyo dhaci iyo boobkii iyo waliba cabsidii badnayd maadaama security iyo lanoo keenay wax walba aad baa u mahadsantihiin khayrna Allah hayna siiyo ajri xasanaadna Allah haynaga siiyo maadaama anaga ilmaheena nabadgelyo maanta ku noolahay thank you very much A wonderful night in our neighborhood. It has been a wonderful night in our community. We've had this wonderful picnic prepared by the amazing women at Cecil Newman Plaza. And we'd like to thank AJ for coming and advocating for this neighborhood again for the second time this week to make sure that all of these amazing women and family feel safe in their neighborhood and in their homes. Yep.
And yeah, we're just very thankful. It's so amazing what all of these women and families have accomplished in the last week, advocating for the safety of their neighborhood. Security has been here, which has been great. The management company has promised cameras as well, and they're doing a really, really great job. These women are, and their families, of advocating for their needs as a community. And it's a beautiful thing to see. Thank you very much, and thank you for Sarah for being part of our neighborhood, since you are our neighborhood, and advocating for us as well, and just validating our feelings and just being there. And we also want to thank AJ. He's running for mayor, you guys. Check him out. I want to say thank you from the bottom of my heart, with everybody that's here, all the ladies and all of my neighbors, for being here with us and helping us with this process, having the camera, the security, and just giving us the validation and being here for us when we need it. When we elect our congressperson or mayor, this is what we want. kuwaasina waxay ahaayeen dadkii deganaa xaafadda Minneapolis. aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin. haddaba daawadayaal, sidaan wada ognahayba magaalada Minneapolis waxaa lagu dilay bishii May 2020 nin madow ahaa oo uu dilay askari kamid ah askarta Minneapolis, kaasoo kaga istaagay qoorta. intaa wixii ka dambeeyay magaaladu waxay ahayd qalalaase iyo cabsi joogto ah. haddaba barnaamijkeena maanta intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa ee aan ku eegaynay nabadgelyada magaalada. waxaa soo jeedinaysay anigoo ah Asmar Cabdinuur Asmar Degan, aniga iyo dhammaan bahdan TV-ga Nabad. waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo amaana Allah.